kaga kalluumaysta iyo kuwa aan wax laaysan haysan meesha ay kalluumaysatanani la yihiin nolol maalmeedkii ay badda ka heli jireen masiibada dhaqaale xumada iyo saboolnimada waxaan kaga gudbi karnaa qorshahan kaga gudbi karayno in shacabka si hagar la'aan u bixiyaan cashuuraha ku waajibay dawladana ay dakhliga soo xirooday ku bixiso meeshii saxda ahayd iyadoo laga dheeraanayo nooc kasta oo musuqmaasuq ah sida laaluushka iyo wixii la mid ah labo in dawladdu la timaado qorshe dhab ah ee kheyraadka dalka looga faa'iidaysan karo sida kalluumaysiga macdanta cusbada faleenka xoolaha nool iyo wax soo saarka beeraha oo casriyeysan afar in la casriyeeyo kaabadaha dhaqaalaha sida wadooyinka meelaha fogfog taga sida magaalooyinka xeebaha ku teersan iyo buuraleyda calmadow shan annagay noo socotaa dadkeena dibadaha jooga in la abuuro jawi qurbajoodka Puntland in la abuuro jawi ay qurbajoodka Puntland ku maalgashadaan karaan dhulkoodii loona fududeeyo dhammaan caqabadaha ka haysta maalgashiga dalka sida bixinta dhul ay warshado ka dhisi karaan iyo dhimis cashuureed 2 sano oo ugu horeeya iyada oo taas beddelkeeda keenayso shaqo abuuris allana talada ku darsano isna aamino qodobka shanaad aan ka hadlayo caaway waa waxbarashada oo aan baashin fiican u leeyahay runtii anigu waxaan aaminsanahay waxbarashada asaasiga ah dugsiga hoose ilaa dugsiga sare inay tahay xuquuq u leeyahay muwaadin kasta oo reer Puntland ah ayna mas'uuliyadiisa qaadayso dawladda Puntland iyadoo abuurayso goobo waxbarasho iyo macallimiin tayo leh oo bilaash aqoonta waa iftiinka ummadda ee caqabado kasta kaga bixi karto waxaan aad ugu faraxsanahay sida in dheergaradka culimada iyo shacabka reer Puntland ugu soo jeesteen waxbarashada dalkeena ee hadda ka jiraan jaamacado badan oo tayo fiican leh oo ku yaal magaalooyinka waaweyn ee Puntland sida Boosaaso, Carmo, Qardho, Garowe, Gaalkacyo, Badhan, Laascaanood iyo Buuhoodle caqabadaha ugu weyn ee maanta ina ka hortaagan baahinta waxbarasho waa maamul xumada ina haysata taasoo waxbarashada la gaarsiinin meelaha ka fog jidka dheer ee laamiga ah badi shacabkeenu waxay la daala dhacayaan nolol maalmeedkoodii mana awoodaan inay daboolaan kharashka waxbarashada ee ardada laga qaado badi waalidiinta Puntland ubadka ay ku mintidaan ay ilaa heer jaamacadeed gaarsiiyaan ma helaan shaqo markay waxbarashada u dhamaato waxyaabaha muhiimka inoo ah marka waxbarashada laga hadlayo waxa kamid ah oo aan soo jeedinayo number 1 waxbarasho bilaash ah oo baahsan oo la gaarsiiyo ilaa reer tuulo iyo heer reer guuraa abuurid dugsiyado xirfadeed 3 barayaal tayo leh oo dawladdu mushaharkoodu damaanad qaado 4 in kor loo qaado qoondada deeqaha waxbarashada ee Puntland xaqa u leedahay laguna qaybiyo si xaq ah iyadoo laga fogaanayo nooc kasta oo wax isdaba marina
qodobka ugu dambeeya aan caawa rabo inaan ka hadlo waa caafimaadka. Puntland saan hore u sheegay mar dhow waa 20 jirsanaysaa kana badbaaday burburkii ku habsaday dalkeena Soomaaliya in maanta reer Puntland ay u raadsadaan caafimaad waqooyi ama koonfur waa ayaan daro. waxa lagu celceliyaa Puntland waa meel nabad ah, waa dhul barwaaqo ah, haddana waa yar yihiin qurba joogta u dhalatay ee holiday u taga ama degaan ka dhigta oo ku noolaada. sababtuna waa Puntland ma laha caafimaad la isku halayn karo. dadka emergency-ga u baahan oo ay tahay in si degdeg ah wax loogu qabto waxa loola cararaa masaafo 1 kilomitir ah ama ka badan, sida Muqdisho ama Hargeysa. inta badanna ma gaaraan meeshii loo waday oo dariiqa ayay ku geeriyoodaan. marka Puntland ma awoodi weyday dhakhaatiir ku filan oo takhasus kala duwan leh shacabka ka kaafi kara inay Puntland meel ka baxsan caafimaad u aadaan. marka dowladda Puntland waxa looga baahan yahay in dalka laga hirgaliyo cisbitaallo casri ah oo u dhan yihiin qalabkii iyo dhakhaatiirtii si looga maarmo in baahi caafimaad loo aado dibadda. waxa waajib dowladda ku ah inay gaarsiiso caafimaadka asaasiga ah ilaa heer tuulo iyo heer reer guuraa, iyadoo la tababarayo kalkaaliyaal caafimaad iyo umulisooyin oo ku qanacsan inay la noolaadaan dadweynaha ka fog magaalooyinka waaweyn. in la xoojiyo ka hortagga cudurrada iyo fayadhoorka. waxaan ku soo gunaanadayaa markaan soo koobo dhammaan xogtii aan nila wadaagay, sida kaliya wax looga qaban karaa waa inaan helno hoggaan aqoon dheer, howlkarnimo dheeraad ah, dulqaad joogto ah, geesinimo markii loo baahdo, sabir iyo tala wadaag leh ayna u dheer tahay alla ka cabsi iyo kalsooni eebe. waxaan caawa hortiina isu soo taagay anigoo kalsooni weyn ku qaba inaad igu taageertaan hawshan baaxadda leh oo aan rabo inaan wajaho anigoo wax damac gaar ah iyo dan gaar ah toona aan ka lahayn ee iga tahay kaliya badbaadinta dalkeennii aynu wada jeclayn ee Puntland, dhulkii odgoonaa. markaan arkay inaan ceelna u qodnayn cidna u maqnayn, waxaan maantay ayniin caddaynayaa inaan ahay musharax u taagan doorashada Puntland sanadkan soo socda hadduu Ilaahay yidhaahdo 2019 January 8. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. aan noqono kuwa shaqo bilaaba. mahadsanidin kulligiin. aad baan